gacan weeye gaarigaas waa gacan gaarigan kalena waxaa ku sawiran dawacadii waa ciidankii ay ku sheegeen ciidanka madaniga ah isna waa gacan laba baabuur ma iga haysan halkaas muuqaalada meydadka laga duubayana si arxan darro ah oo foolxumo ah baa loo duubay mana lagu soo gudbin karaa halkan waa la ii soo diray ilaa iyo 15 qof oo meel taalo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un nimanka warjaclo waa kaasa marka horena way soo ordayaan marka dambana waa sii ordayaan labada oradna mid ma daayaan waa adkaatay markii muuqaaladii ugu dambeeyay xogihii ugu dambeeyay ayaan rabaa in halkan idin kula wadaago dagaalka wuxuu soconayaa 6 saacadood 7 saacadood oo xiriir ah ma taqaanaayay waxay isku dayeen inay salinta soo weeraraan iyadana weerarkaasi waa la iska difaacay magaaladii Qorlugud ahaydna waa kuwaana hooyaala ku dhacayo waa la soo duubay ila ark Qorlugud galabtay waa gacan in la qabsaday u badan tahay ila ark cadeyn wadan ma keeno muuqaal ma taqaanay inta meel soo duubo hebel baa la dilay mid kale la qabtay waan dhihi karaa aniga waxaan cadeyn wadan iguma iimaanaysaan wuxuu hadaysan cadeyn wadan aniga igu iimaanaysaan labadaas muuqaal waa iga haysaan waa labada gaari oo hadda la qabtay madaafiicda ku dhacayso ma taqaanay ii sheeg magaalada Qorlugud وتلك الأيام ويا هراي وحنا أقولين مدافع كسر عجرتي لاس عانود لكن سمعت Qorlugud يكون عيان مدافع إذا كهال كان جوجي بان حق إذا كسينا يا أو ما تغنى يودق علمي ميليشيات كأسنم إذا كودق علمي بحق إذا كسينا يا دمان معلومات هذا أذكر كمان هل كانت كلاس عندهم تان ما أنت يبالك عندها كوهية حاله وهذا جهين لما أنت إن مقال كسير شر جراي يوتيوب كنا كصبيرة أبدا ما عشان وأمريكا كواد أرد دجال غير عداي wixii la filay waxaan ahayn ayaa soo baxay 6 saacadood 7 saacadood dagaalku socda raggan waa saraakiishi hadda laga keenay Ethiopia ila ark sawirada waa kuwana waa loo tacsiyeynay hadda maalinta dhaweytu nuuc taani wuxuu u diray Ethiopia waa guutada commandosta dhufsaday rag saraakiisha ka ahaaway raggaas waa loo tacsiyeynaya ilaa 5 sarkaal lagu dilay meeshaas waa saraakiishi dagaalka maanta hogaaminaysa u jeedaan baabuurkan waa laga qabtay waa kuwaas ciidanka SSC baa isku sawiray waa baabuurkaas shaabadii Soomaaliland uu leeyahay u jeedaan waliba ciidanka commandosta ee dhufsade baa laga qabtay ninkii mooday in geel jira meeshaas dagaalamayo ha ogaado meeshaas ciidankii Muuse Biixi baa ka dagaalamay ha ogaado ninkan doorasho ma rabo inuu qabto nimankii habar Yunisna wuxuu u baalkiyay iisha ma taqaanay qub moosa buu u tuuray waad ogeedeen shalay wixii ku dhacay موسى سياسة الآن لمن كبر يسوى كأتكاذي إبر كأتكاذي قب موسى أنت أطوري بواحد عند قال كان قلنا هذا بقرمد يدي هبر يسوحي كإيمانيا إلى السناق إلى يبرعو إلى يعرقابه بكإيمانيا إيوه أنت سوحي سلين عضوة إنا كاشان هبرجع له لكن اسمه دعيسو هبرجع لنا السعادة وعودين أنا جو عاد إذا المسيلين إليه أرتقل هذا فريم بقول أرديسو إلينا السياسة أقون أو يسوي عمل الجوجن هالكاس كغيرت وموسى بيحسي والبوقات كذا هالكاس كأرك هذه وإن لو ذاك دونا السلام عليكم هذه هل كان عندك لو ذاك دونا دمان معلومات هذا بابور كسرت ولا قبتي إيش مدافع دينا هذا واحد لقوا قراعية Qorlugud بالقوا قراعية عدين بابا يدين كنبا مقالة Qorlugud إنه يكبحين ولا قحي tuulada Shangeed baa ciidamada SSC talis u ah ciidankiisa halkaas dagaalka ka qaadaya tuulada Shangeed ayaa talis u ah ciidanka SSC balligi galgalna waa laga jafay galgal 2.5 kilometer bay waxay u jirtaa Qorlugud magaalada Qorlugudna waa diga baasaas laga dhigaya mar dambana kuma soo noqon doona waa ogaan doontaan soo hadda Muuse Biixi ma lahayn waxaan la dagaalamayna argagixisay huwan وأرجعيسي هو بانهاي هل كان كعدينا يا بل نينكي دولك وحكي لانو هاي سكن هاديات عدين أنا وحنا عدين وذن ما يدين كان يبا وحنا عدين وذن هدا يدين كانوا بيلوان باهيبا بل على المريض كوجو عليه إلى أركب بابورك لقى قبطي هي بابورك كلام متقن الدواعد وكسوران تاي لما الجاري إلى أركب وكوانه ما يدت كان ما بصاب ونيجي كربا بابور متقن يسوق يتدي زبنه أي أفكار الله وحري إلى 6 باكو حرام هل يميت كحرم ولا هي هل احترام لما أنا الرجاس ورجار سينكر واي رج دجال كجرا واي ما بقى واحد عيبه هذيان
wax ma ogaan karaan marka waxay ila aragtaan hal mar baabuurtii laga qabsaday ila arka haddana mar kale aynu kugu celiyo muxuu ka dhigan yahay markii dagaalkan maxay tahay natiijada oo Muuse iyo kooxiisu mataqaanay iyaga ay ka rabaan horta natiijadii waa uu helay Muuse biixi ninkii islaha siyaasad ma yaqaan waa nin waalan weeye ninkaas siyaasad ahaan dagaalkan isaga siyaasadiisa oo ku jirta sababtu waxa weeye doorasho ma dhacayso 10 November 12 November ma dhacayso ha ka yaabidina qoliyii frimbiga la ordayay ee meelahan taagnaaya habar yoonisna waa dhiiqadii lagu kula jiraan kama bixi karaan nimanka habar jecel iyagoona abaal uga hayn ayay la joogaan waa natiijada koowaad horta faa'iido waxa qaba Muuse iyo kooxiisu doorashadana dib ay u dhacaysa hadalkan iga qoraalka ay hadda soo galiyeen telefishinka qaranka Soomaaliland waxay ugu yeeraan SNM ee maamulka Hargeysa waxay ku leeyihiin annaga waxa nagu soo duulay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa nagu soo duulay ciidankan SSC waxa gadaal ka taagan Xasan Sheekh Maxamuud ayay leeyihiin taasina waxay ku cadeynaysaa mataqaanay Muuse tacticada uu ciyaarayo ciidanka ka dagaalamayo qorlugud aageedu maxay yihiin ciidamo shacab ahba mise waa ciidamo diyaarsan ciidankaas waa ciidan diyaarsan 3 bilood 4 bilood ka hor Nuux taani wuxuu ka diray wajaalo ka diray muuqaaladoodii baa la hayaa markii ay sii baxayeen ciidanka Itoobiya ka imaadeen saraakiishoodii maanta dagaalka lagu laayay baan codadkoodii haynaa sawiradoodii haynaa muuqaaladoodii haynaa qof kasta oo harti ah oo halkan iga daawanay waxa uu sheegayaa in dagaalkaas uu la miyay dagaalkii laascaanood oo kale oo nin walba waa inuu diyaar garoobo nin walba waa inuu meeshiisa ka diyaar garoobo dagaalka waa ballaaran doona sida hadda xaaladdu ay tahay ninka Muuse dabinkii uu rabay inuu dhex dhigo nimanka habar jecel iyo habar yoonis waa uu dhex dhigay waa siyaasi balaa ah way ninkaasi nimankii habar yoonisna dhiiqadii lagu hawa kula jiraan afka sanaag waa ka bilaabanaysaa ilaa iyo hawdka waa ay ka bilaabanaysaa هذه intaas dhul way ka bilaabanaysaa marka nina dhulka waxba kama yeelaan anagu waan diyaarsanayn cidii ay u dirantayna waa la arki doonaa waxaan halkan ka cadeynaya inayna habar jeclo mar dambe qorlugud ku soo noqon doonaan halkan aan ka cadeynaya ciidamada SSC ilaa iyo burco ay gaari doonaan ama burcaanu qabsanayna ama buuhoodla la qabsanaya wax ka dhaxeeya malahan aadiya idinka fadhi la idinka waayay intaas la idin digay dadkan dulmi ma rabaan hadii ay deegaan kale ay duulaan ku yihiin oo ay dad kale u socdaan dhulkood 25 Agoosto markuu dagaalku ka dhacay ciidamada SSC ay guuleysteen oo ay guumaysi og tageen maalintaas ilaa burco socon lahaayeen maalintaas bay ilaa burco socon lahaayeen dadkan dulmi ma rabaan deegaankooda joogaan dhulkaasi joogaan halkaas reer miyigooda joogay gaadmo iyo mission baad kala dhamaan wadeen marka maanta nin walba ma taqaanay wixii uu beertay ha gurto ninkii ay ugu fataxun tahay inaynu aragno anigana waxa halkan idinku gudbin karnaa daqiiqad waxa halkan ka heli doontaan cadeymo muuqaalan soo bandhigay waxaan muuqaaladan ma idin keenayo habar jeclana waxaan leenahay awal idinka xaaba ahaydeen waana dhamaanaysaan xaqiiqadana idin sheegayo waa dhamaanaysaan waxa la oran doonaa reer habar jecel la oran jiray ayaa halkan ku noolaa waa ku noolaa والله ciidanka ka dagaalamay halkaasi waa ciidamadii reer miyiga ahaa oo aan hub culus haysan oo ma taqaanay dadka deegaanka ah weey 6 saacadood bay guutooyinka ciidanka Soomaaliland ee Itoobiya lagu soo tababaray ayay la dagaalamayaan waa 6 saacadood oo xiriira ka warama markay dagaalna ma taqaanaan sida rag la isaga dhiciyana ma taqaanaan Muusana waa idan tuuraya markay futada Muuse bal hayra deeqdo ina wada gali kartaan aynu aragno aadiyaad intaas ku soo kafaya wixii macluumaad dambe soo kordhana halkan baynu kula wadaagi doonaa aad baan u mahadsantahay saaxiibay meel ka soo joogtaan waa idin salaamaya